السلام عليكم صاحبيال aad baan idin salaamaya dhamaantiinba khayr iyo wanaag baan idin rajaynayaa waxaan maanta insha Allah muuqaalkan isku la wadaari doonaa mid kamid ah qisooyinka aad u cajiibka leh ee dadka aqliga badan leh ay leeyihiin tolo maxay noqon doontaa qisadaas nin lagu qiyaasay da'diisa 26 jir ayaa lagu xidhay jeel kamid ah jeelasha waddanka Mareykanka cidda xilina waxay ahayd mukhaabaraadka ama sirdoonka waddanka Mareykanka ayaa xidhay sababta loo xidhina waxay ahayd inuu sir badan oo waddanka Mareykanka leeyahay uu qaatay isla markaana markaa uu xaday مسكح بدنيسة يا خيامديسة أولد واحد لو مجعاب جري الثعلب أما دعوا لي بلو مجعاب جري يعني سوى واحد جري أنه هل جري كاس مركي الحري شال كمركا لو حري نكاس وحى الله مركا به أو مركا ميل بادية مركا كنول ما بيوحى هني ميل بادية كنول أو عد مكان لا تشوفت أنا جري أبيه مركا بيرير بولها بير تاسو مركا وحى قدام عينه مركا طبعا لك بيرته سو مركا وقوته لكن مو أولي كرواية دادي سؤال سريسة أولي كرواية إنه بيرتي فشو ومركها وحكا قطه كدبنا فرين بوجو إن كيس تشيل كوسو درو حكولي إن تيجي عن شعلايو وحن شعلان لها إن الدرب تيجي تصير بيرت إلى قطه وأن طبعا ده إنه قصة صارنا بس إيه مكعد أكتر إذا شوفت أنا بشرته عدي عاوز أنا بشرته أنا ودي فوقاتي إن تبى مدرك دي فرنتي أبيه بوهلاي كدبنا يسوق شيل كشورة أيوة وقد بقري ورقد أصلا أبيه بودري وحر أباه يجي قال لي هايو waxaan ku rajaynayaa oo kugula talinayaa inaad beerta si fiican aad u qoto laana beerta wax muhiim ah ama shay muhiim ah ayaan ku aasay markaan jeelka ka soo baxana waxaan kaaga warrami doonaa shaygaas waxa uu yahay ila waan fariimaha u imanaya ee kuwa ka baxaya aad loo kormeerayo oo si fiican loo eeriye warqadii markiiba mukhaabaraadka ama sirdoonka Mareykanka ayaa helay kadibna way akhriyeen kadibna waxa ku arkeen shayga muhiimka ah uu sheegay beerta ku aasan iyaguna marka horba sir bay ninkan ka baariyeen markii gurigii odayga la tagay go'doon xisaar ba lagu sameeyay oo la goodoomiyay beertii ba ayaa shibra taaka ba beertii loo beeray ayaa loo qoday kadibna waxba way ka waayeen dib bay isaga soo noqdeen kadibna inantii baa fariin aabihii mar dambe jeelka uga diray wuxuu ku yiri aabo waxa rajaynayaa shaqadii aad iga codsatay ama aad ku taamaysay inuu lagu qoday wayna si aad u fiican lagu qoday ama yani beertii si fiican lagu hagaajiyay yani shaqadu khiyaal bay haydo fariin uu oraan u diriyay bay haydo ku siriyay كان مخابرات كان سي مركا شقدي ay ugu fuliyaan aabihi waxna aabar ku rajinaya buu ku yiri in hawshii adoonaysa si fiican lagu qabtay intan awoodi karina intaas ay ahaydee wax dama hadad codsato dib ila soo hadlo iyo soo sheegay buu yiri waxaan ku arkaynaa ninkaas maskaxbadnidiisa iyo aqligiisa inuu adeegsaday hawl wax yani shaqo wax hawl badan ka qaban lahayd inuu jeelka ka baxo uu soo qodo uu dib soo noqdo inuu si yar oo fuu maskaxdiisa uga faa'iideystay fariintii uu qorna ay noqotay mid hawshii uu aabihi uga baahnaa si fiican u fushay in badan waxyaabo badan oo qabaano oo waqti badan iyo juhdi badan iyo maal badan inaga baxa hadii aynu si fiican ugu fikirno oo in maskax gelino si fudud oo aad u fudud ku dhameystiri karnaa adduunka waxa la isku dhaafay waa maskax weeyaan sida shayada loo fikiro iyo wadooyinka sida loo kala fudaydiyo yani shayga gaaritaankiisa loo marayo ayaa lagu kala hormaray aynu in badan maskaxdeena ka shaqeysino salaam alaykum